walaalayaal waxaan joognaa mowqif aad iyo aad u baahan inaynu ma in badan ku soo noqnoqonno xabaalaha si aynu dareenno aakhiradeenna iyo noloshooyna intaa tahay walaalayaal jaamac ilaah u naxariisto jaamac rooble waa garanaysaan intaa u madaxweynuhu sheegay ka badan oo sheegi mayno laakiin wax xaqiiqo ah in maanta aynu joogno maalintii u dambaysay noloshiisa ama maalmihii u dambeeyay noloshiisa oo uu bilaabay noloshii aakhiro oo u gudbay maanta camalkiisii iyo wixii uu geystay markhaati badanna waa loo furay oo waynu ku ogeyn inuu ahaa nin samafala ah nin caalima nin sheekha nin hal abuur leh intaba waynu ku ogeyn laakiin falidaalika falyacmal caamiluun anigu waxaan odhan lahaa maantoo kale aynu shaqaysano walaale maantoo kale aynu shaqaysano intaasoo qof oo ka soo xaadiray aaskiisa yimi qof oo la soo qasbay ma jiro qof walba wanaaggii ku ogaa iyo khayrkii ku ogaa ayuu islahaa uun bal raaci adiguna saaxiibtinimadii aad saaxiibka ahaydeen u gudbi oo ku gudbi salaadaas inaad ku soo gotido oo dalabto naxariis ilaahay maanta wuxuu inooga baahan yahay walaalkeen jaamac inay dhammaanteen u ducayno oo inugu ducayno ilahaynu qabriga u noqono اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ثبته على القول الثابت اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ثبته بالقول الثابت يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد